xukuumadda iyo gobolka iyo xildhibaanada faraha badan leh marti sharafka kale joogta culimadu ka mid tahay waxaan ku salaamayaa salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore ilaahay baa mahad leh cid loo mahadnaqo oo ka weyn ilaahay ma jirto waayo nabadda iyo quruxda iyo madashan cusub ee aynu isugu nimi wax lagu mahadnaqo oo ka qaalisan ma jiro caafimaadkiina siiyey iyo barwaaqadiina siiyey aad iyo aad baynu ilaahay ugu mahadnaqinaa nabaddana ilaahay baynu ugu mahadnaqinaa cid kasta oo ka soo shaqaysay madashan beesha habar yoonis iyo ciise muuse ee shaqaaqadu muddada waxaan filayaa muddo 6 bilood ama 7 bilood ku dhowey jirtay shaqaaqadanu dhimashaa jirtay dhaawac baa jiray alxamdulilah waa dad isku mid oo qoysa cidda laba reer oo kala fog istiraahda maaha habar yoonis iyo ciise muuse waa qoys weliba qolada aynu maanta gobolkaynu joogno ee togdheer allah u naxariistay mujaahidkii weynaa odaygii weynaa ee taariikhda lahaa ee labaylaawaanka ahaa xaaji cabdikariin cabdiwaraabe beriuu madal ka hadlaayey wuxuu soo qaaday isaaqoo dhan buu faalleeyey wuxuu yidhi habar jeclo lalama dego iyadaa iscajibso de waa fareero dee niman cidba u baahan maaha ciidagalena lalama dego arabna lalama dego sacad musena lalama dega buu yidhi dee ciise musena meel kulul bay degaano dee dadkuwa ma xamilayba kay meesha wanaagsanaatee habar yoonis gob bay ahaan jirtay buu yidhi gob nin weyn buu ahaa ninkaas goobta reerka qure ee gobonnimada isaaq ka duwan ee la dhex dego ee lagu dhex noolaadaa bay ahaan jireen buu yidhi laba qolo ayay gob ku ahaayeen buu yidhi labadaa ilanayma ciise maxamed ciise iyo idarays ciise waa labadaa haddii ay idinka baxaan oo isdishaan habar yoonisay gob noqon maysaan buu yidhi waxaan idin leeyahay maxamed ciise iyo idarays ciise ama ciise musaa burcanaa qolada anugu galbeedkaan ahayoo way naga faan badan yihiin way naga fariidnimo badan yihiin way noo faanaan waxaan islahay waxay idin dheeryihiin habar yoonista burco laakiin maanta waxaa soo baxday wanaagga iyo gobonnimadu horta waa caqliga inuu caqligu shaqeeyo annaga xirsi cismaankaygu ama habar yoonisteedu dacalmudhuq baan ka imo waa nimanka la ydhahaa ishaaqar iyo muse cabdullah abakar loogaa maanta horta labadeedaa qoolaa goba oo laandheeraa kol haddaan halka idinla joogno 7 bilood idinla joogno horta bahashii iska wareejiya intaas waa iga intaa waayo walaalada iyadoo kala bixi waayey nimankii 400 sano noo faanayey ayaanu 5 bilood burca u joognaa waa markii taariikhda ugu badnaydaan burca intaa joogaanu nabad baanaanu joogaaye colaad wallaahi inaanan habeen ka talin waxaa la yidhi nacasku raggii hore nacas ma dhalaa fariidku nin baa yidhi maya haddaa doqonku fariid ma dhalaa maya buu yidhi haddaa kan nacasku dhalay awowgii nacaska ahaa ee la yidhaaho wiil nabsi muxuu ahaa buu yidhi reeraaba haysta wuxuu yidhi maalin reerkooda reer ay isku dhow yihiin toba reerkooda ka dilo un tali dheh maalintaasun tali dheh markuu 10 ilmaadirradii la dilaan buu odhaya tollaay war raggii ma loo aaray dee waa kaa 500 dilay waa kaa 500
mid cawlanoo fariidalayoo tali jiray ayaa odhanaya waryaadhaheen waa baljooga war qadar baa dhacaye bismillaahi raxmaan raxiim waar bal bisinka u qabta waar nimankaa aynu tolkanahay raggaynaga laayey waynu suginaaye muddaynu suginaaye waxaynula yimaadaanaan sugno qadar baa dhacay bay dareenkii qofka isku beddelaya haddaad garan weydo qof dhintay kollayba wuu dhimanaya inuu qadar jiray oo sababi timi ood istidhaahda arso waxaad ka shaqaysay doqonnimo ninka idhaaha waxaan iska celinoo ragga ha loo aaro waa wiil nafsi nacas baa dhalay horta waxaan leeyahay waxaynu ka shaqaynay oo halka ka muuqata qurux badan nabad loo soo hawshooday ilaahay ka sakow dad badan sulaadi cuqaal waxgarad ayaa nabadda maanta halka taalla ka soo shaqeeyey waxa sii dheer oo labaylaawaana oo aniga taariikhdii igu horraysaya ganacsatada waxaa moodi jiray inay iska shaqaystaan lacagtooda dukaankooda ilaahay wuxuu inoo soo diray oo habar yoonis iyo ciise muuse maanta u soo diray oo nabaddaa bayska u dhigay niman ganacsataa oo isu soo xilqaamay danahoodii ka yimi bisinka u qabtay dhinac walba gahaydh iyo dagaal baa ku dhacay nimanka dhinac walba ninkii waxaan iska celinahaa baa joogayoo dagaal badan way samreen halkaasay keeneen iyagii ciddii soo shaqaysay waynu mahadnaqinnaa war waxaan leeyahay nabad wax ka qaalisanoo adduunyada yaalla ma jiraan weliba waxaa la yidhi colaadda taalla cali saa'id reer cali saa'id waxaan anigu ogaaday inay yihiin qolada la ydhaaha reer sheekha dariiqada waa qoys 100 sano ama 120 sano ku wada noolaa majority halkaa colaadda gashay nin wanaag kaga taliya mooye nin xumaan qolada ciise muuse ee reer cali saa'idna waxaan leeyahay reer cali saa'id waa meel waliba waxay leedahay dee sheekhalbeled sida uu sheekh xusmaan nuuruga yahay burco sheekhalbeled war haddii cali saa'idoo 3 ugu maraaya haydhnimadiisa hunguridi ka galo ma barakoobaysaan xumaanna waa ka shaqaysa halkaana xumaan badan baa ku leedihin waanu wax badan baanu baadhnay wax wanaajiya baan leeyahay anugu samso weliba nin hore oo joogay oo anugu aanan aqoonayn oo cabdi cali saa'id la yidhaaho waxaan is leeyahay ninkaa inkaar baa ka dhacdaye isaguna hadduu nool yahay cali saa'id ha u duceeye dadkiisa intaasu waa iga talo waxaan kala leeyahay qolada habar yoonis war habar yoonis han iyo libaaxnimo iyo nabadna waa lagu ogaa rag nabad ka shaqeeya lahay nabadda maanta waan faanayaaye labadii nin ee habar yoonis ugu hoggaaminta wanaagsanaa suldaan diiriyo guuleed xaaji baan ku haya labadaba horta anaa abtu ahaa labadaba anaa abtu ahaa war halkii hore hoggaamiyaasha ka doona oo hoose suguursiga daaya war halkii faanax suusta ka soo jeedayna ka doona maxamed daahir mee jiifki waxaan leeyahay